maxaa dhacay haddii aan ku dhaho in dadka lacagta ugu badan haysta amba taajiriinta aysan ahayn dadka ugu caqliga badan sidoo kale waxaad ogaataa guusha dhaqaale marnaba kuma xidhno waxa aad taqaano balse waxay ku xidhan tahay habkaaga fikirtaada maanta waxaan kuu furayaa sirta ku jirta buuggan loo yaqaano The Physiology of Money sir dadka badankiisa aysan ogeyn marnaba haddaba ku soo dhawo muuqaalka maanta si aad ogaato oo aad u barato habka loo maamulo lacagta weliba si caqli badan oo xirfadna ku dheehan tahay muuqaalkan maanta waa ku muhiim waxaan ka hadli doonaa 5 qodob ee ugu muhiimsan ee ku jirta buuggan isla markaasna laga baran karo qaabka loo kaydsado lacagta loona maamulo dhaqaalaha aad haysato haba yaraadee 5 qodob oo noqon doona kuwo wax badan ka bedeli doona noloshaada iyo habka aad u fikirto ee aad u kaydsato dhaqaalahaaga magacaygu waa Mr. Haybe ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waa intaynan muuqaalkeenan u gudagelin waxaan idin yara xasuusinayaa soo kalena idin sheegayaa inaad idinku soo biirtaan page-kana Daaci TV oo aad saaxiib noqon noqotaan bartan saan xogo badan u kala faa'iideysano sidoo kale haddii aad hore noola joogtayna aad muuqaalka like noo saarto comment-igana nagula wadaagto aragtidaada haddaba buuggan ayaa saaxiib waxa uu ku leeyahay lacagtu sideedaba ma aha maatis xisaab la xalinayo balse waxa weeyaan behavior waa dabeecad oo dadka badiya ayaa waxay u haystaan in lacagta lagu helo aqoon badan oo aad leedahay amba xirfado badan oo aad leedahay balse xaqiiqdu midaasi way ka duwan tahay wayna ka dheer tahay oo qof dulqaad leh ayaa ku guuleysta sidoo kale qof isxakameeya ayaa taajir noqda tusaale ahaan qof lacag yar ama mishaar yar ku shaqeeya oo laga yaabo mustaqbalka in lacag badan yeesho qofka maalin kasta hela kharash badan amba mishaar badan ku shaqeeya bishii laakiin wax lacag ah aan dhigin that means markasta oo aad lacag dhigato oo markasta oo aad noqonayso qof isagoo isku tiirsan kalabaad ayaa waxa ku leeyahay saaxiib guusha dhaqaale marnaba kaliya ma aha inaad qabato shaqo adag balse waxa ku jira halis iyo nasiib labadaba dadka qaar ayaa waxa laga yaabaa waxay taajir ku noqdaan inay fursad heleen ama markaasi ay heleen deeq waxbarasho sidoo kale laga yaabo inay helaan fursado kala duwan oo nolosha ay siisaasna ay u suurtageliso inay noqdaan dad qani ah amba lacag badan haysta kuwa kalena waxay luminayaan waxay haystaan si ay u helaan waxyaabo aysan gacanta ku hayn taasina waxay keenaysaa in noloshoodu halkaasi ay ku gabaabsi noqoto oo casharkan ka baranayno qodobkan ayaa waxa uu yahay ha ku faanin kuushaada sidoo kale ha ku niyad jabin fashilkaaga oo labadu waxay noqonayaan qayb ka mid ah nasiibkaaga qodobka saddexaad ayaa waxa weeye saaxiib awoodda dulqaadka inaad lahaato waxa loo yaqaan compounding waa mid ka mid ah siraha ugu waaweyn ee loo kaydiyo lacagta waana lacag yar oo soo koraysa muddo dheerna qaadanaysa oo haddii aad maanta lacag yar kaydsato waxa laga yaabaa sanado badan kadib inay noqoto hanti badan dadka badankiis waxay rabaan natiijo degdega taasina waa khaladka ugu weyn ee qof kasta geli karo hadiiba uu yahay qof markaasi lacag kaydsanaya qodobka afraad ayaa waxa ku leeyahay saaxiib isbarbardhiga marlabaha isbarbardhigin dadka kale mid ka mid ah waxyaabaha dadka saboolka ka dhiga waa in isbarbardhigaan dadka kale ee ka levelka sareeya tusaale waxaad rabtaa inaad nolol fiican ku noolaato soo kale waxaad arki kartaa qof gaari wacan wata adiguna waxaad rajaynaysaa inaad isla markaasi hesho gaariga uu wato oo kale حتى هدي آذن أودين بقى وكان أي واحد كلية قيمتي هدي بعد راتو إن هتفك على سبربرنت أو يعني أذرع عضو وحيابها يجو سمين يعني هالكادرة اللي هي دوي جالا وهي قف تستوي حوليه ويسقى وقارا تاس ونولش يسبوك فينيو أما والله جيابو إن نقطن دو بوش كوكاريو قدك سنات أي واحد كلية صاحب وتشدد العقدة وتشدد العقدة معها إن هتفك على كسر رئيسه بس هو أنا شو نرد دقن حرية له marka lacag leedahay laakiin aad warwar ku jirto taas ma aha guusha dhabta waa inaad hesho nolol xorriyad oo aad ku qanacsan tahay tii iyo gunaanadkii waxaan ku leeyahay saaxiib ta kaliya laguma maamulo caqli badni balse waxa lagu maamulaa sidoo kale inaad leedahay dabeecad wanaagsan haddii aad ka hesho saaxiib muuqaalkan like saar sidoo kale haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo barteenana saaxiib noola noqo sidoo kalena muuqaalka sii share gare oo la wadaag asxaabtaada jecel inay marun ka faa'iideystaan soo kalena ay dhaqaale kaydsadaan waxaan rajaynayaa inaad qaybta commentiga ula wadaagto waxaad ka aaminsan tahay lacagta waanigoo Mr. Haybe inta muuqaalka xig ku mid doon hada bilaa tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh